salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. halkanina waa taar t v daawade ku soo dhowaada barnaamijkeennii waxweydiin ogaal ka sheegnay jeceshahay barashada qur-aanka tafsiirka higaada iyo dhammaan culumta islaamka haddaba ka baro goob kasta aad kaga sugan tahay caalamka dugsiga almacaarif kala xidhiidh wixii faahfaahina nambarada shashada kaaga muuqda. xogaha nagaga soo deedamaya garangarta bariga dhexe ayaa sheegaya inay dowladda maraykanku ayagahaasi ku dawdabayso isla jeerkaasna ay soo laba dhigayso col iyo ciidan taagtiisa leh kaas oo ay dhanka u geeyeen si loogu darbo duulaanka iyo dabra weerarka ay la gaadayaan sida tan iyo xukuumadda kacaanka islaamiga ee iiraan oo waayahan bagaaleebta loo tumanayay. in ka badan 5,000 oo cagamadow ah ayaa la soo tabinaya inuu maraykanku ku soo hubsaday dalalka jabuuti iyo jasadka midoobey ee imaaraadka carabta halkaasi oo noqon doonta goobta laga halgaadi doono jamhuuriyadda islaamiga ee kacaanka iiraan oo teer iyo guyaashii lasoo dhaafay ula booca loogu tukubayey. ninka dhuranka badan ee Donald Trump oo ciyoon dhambaal digniin iyo dardaarwarina u dawiyey xukuumadda Teheraan ayaa ku doodhooday inuu reerahan gacan wax kaga wanaajin doono isaga oo kala dooransiiyey inay isaga daawo la qaytaan iyo inuu ku dhigi doono wax xilleh iyo quulo ceelin taas oo ay waayo ka sheekeeyaan. xukuumadda Washington ayaa ku doodaysa inaanay sinaba gorgortan uga geli karin in dowladda Iiraan ay taabka ku haysato oo ay ku daashooto dabka iyo baaruudda waxkumaada gaar ahaan dhina dhabatada ay dhacloorsato iyo dhunkaasha ay fidhaqamiisto. ninka haatan carreeda ka doobiyaya Donald Trump ayaa u muuqda inuu yahay nimaytiisu u caddahay isla jeerkaasna meel iska dhigay wax kasta oo waawan iyo wadahadal ah kaas oo hadda doonaya inuu gacanta ula tago cid kasta oo uu ka wadi waayo amase uu ka itaan roon yahay gaar ahaan duulka uu u arko inay sanka ka taagayaan oo aanay yeelaynin waxa uu goobayo amase raadinayo. haddii aynu u kacno qaaradda afrika isaguna ninkii saalaxwetada ahaan jiray maxamed xamdaan doogle oo hadal la soo kambaruursaday meelaha ay dadku xogaha ka dheedaan ayaa gaballa ka caddeeyey in lagaga adkaaday isla jeerkaasna lagaga gorroonaaday gacan ku-haynta magaalada khartuum iyo intahaysa. waxa uu sheegay inay majaadan uga luudeen oo ay hadda dacal baneeyeen ka gadaal markii goonyaha lagala galay gubniyaal qiiqaabaya iyo gaaleeb ciiraysa taasoo soo duduucday inay colkii iyo ciidankii horboodi jiray dan u hanaasiyaan. waxa uu bitiyey inay sidoo kale ka hadaafeen ateerooyinkii uga qodnaa sida tan iyo deegaanka umudurmaan oo ay hadda ku ildaadeen iyagoo ku libdhay dhinacan iyo gobolka daarbuur. waxa uu ku goodiyey inay dib u soo celin doonaan wacdarihii iyo sumbulihii lagu yaqaanay tiyo ay hadda kadib samayn doonaan lama arag iyo looma fadhi aan iyada oo kale carrada laga soo sheegin. waxa uu intaa sii raaciyey inuu ciidankiisu ku jiro dib isu abaabul aad u xoogan oo noqon doona kii dab loogu mahoobiyi lahaa magaalooyinka laga hiray amase lagaga gorroonaaday ee dalka suudaan. maxamed xamdaan doogle oo hadalkiisa sii dalqaminaya ayaa sidoo kale isla soo jacbeeriyey inaanay jirin cid kale oo ay u qaylo dirsadeen amase ay gurmad u doonteen oo ay iyagu yihiin dar isku filan oo iska baacin doona cid kasta oo dhankooda aabi ula soo kacda. docda kale dowladda suudaan ayaa ku howlan in gebi ahaanba dalkaasi laga mid tiro qolyahan gaasdhogolaha u badan ee gaarayucuunta RSF kuwaasoo hadda u muuqda inay qaadeen toobiyihii ay ku burburi lahaayeen iyo jidkii xumaa ee lagu waayi lahaa amase ay ku maran lahaayeen. isaguna madaxweynaha reeraha maraykan Donald Trump ayaa shaaca ka qaaday inuu kol saddexaad isu soo galuubi doono wabarka madaxtinimada maraykanka gaar ahaan marka ay soo ilaato muddaxuleedkan waatan mayalka waya qolyaha Washington. wuxuu tilmaamay inuu dacwareemayo xeerarka iyo xeegaanta u degsan dalka maraykanka kuwaasoo aan dhigaynin inuu hebelkay Trump mar saddexaad isu soo taago jagada madaxweynenimo ee dalkaasi. wuxuu sheegay inay jiraan xeelado kale oo xeerarka dalka maraykanku u ogol yahay inuu mar saddexaad ka ciga taaleeyo meeshii uu labada jeer ee hore ku calicigaalay. wuxuu damuuriyey inuu adeegsan doono tabahan uu ku hirgelinayo damiciisa ku ologale inuu kasii hormadoobaado qolyahan uu iminka ka horudulubo. arrintani ayaa imanaysa xilli ay hadheeyeen moorada siyaasadeed dalka maraykanka jahwareer iyo weliba ruxantaag iyo madhe kuwaasoo gebi ahaanba soo handaabiyey in dacal la baneeyo ama layska indhatiro qaar ka mid a xeerarka u yaala dalkaasi maraykanka kuwaas hore uu ahaa kuwa lama taabtaan ah balse la dacfuruuray markii uu talad reerahaas iskaga riday duqa Donald Trump. sida ay baahiyeen duulka abulootada leh dalka maraykanku tallaabadan ayaa haddii uu holodo madaxweyne Donald Trump ku keeni karta hadimooyin iyo halgaado qooma gaarsiin kara siyaasadda ku-xushaag aan kabtamin ee Donald Trump kuwaasoo gebi ahaantiiba fagaaraha tabaha iyo weliba xeeladaha maraykanka iyo carre edegba ka saari doona madaxweyne Donald Trump. geesta soomaaliyana isaguna duqo xasan sheekh maxamuud oo in dhowaalaba uu jaruhu ku xumaa ayaa isla soo galuubay inuu hadda diyaar u yahay oo uu u darban yahay inuu waanwaan iyo wadahadal la qaato duulka mucaaradda yidhi oo in dhowaalaba uu idhaha ka lalinayay
amase uu kaga dhigay qaar uu quursaday oo iska biday. waxa uu ku cataabay inuu isagu diyaariyey gogashii ay dhinacyadu wax ku wadaagi lahaayeen, islamarkaana uu wax kasta u huraayo sidii nabad loo qaadan lahaa loogana heshiin lahaa dhammaanba danqaabada iyo dekenaada uu isagu soo waldaamiyey ee dhanka haatan ka taagan. waxa uu intaasii raaciyey inuu garab iyo gaashaanba u baahan yahay oo uu diyaar u yahay inay wax kala qaytaan oo ay arrimo badan isla meel dhigaan si meesha looga saaro xurgubta siyaasadda ee u dhexaysa labada jeerood. xasan sheekh maxamuud oo hadalkiisa sii tarminaya ayaa sidoo kale soo jeediyey in meel laga wada istaago ama looga soo wada jeesto qolyaha gabuurka duubta oo haatan u muuqda inay alamtarana soo dhaafeen iyaga oo halkii hore ka soo hinqaday. docda kale qolyaha ugu tunkaroon mucaaradka soomaaliya oo ka halcelinayay tawaawaca ka soo yeedhay xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay inuu duqu yahay mid aan la ysku halayn karaynin oo sida jijirooraha maalinba jaad u ekaanaya haddii laga tegi waayana ay diyaar u yihiin inay fadhiistaan gogasha nabadeed ee uu dhigay, gaar ahaan haddii aanu dabamartayn doonin wixii la isla meel dhigay. magaalada koone gaaro aynu leenahay ma jirto walaa yunabbi'uka mithlu khabiir fas'al bihi khabiiran haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin. taas way anu leeyahay maxaan u leysaa waxaan doonayaa inaan dhallinyaradeen ku dhammaan khiyaali la leeyahay tusaale ku sinaya dagaalka hadda maxaa riday khaatumo rag ka midaba waxay lahaayeen inkastoo anigu aan aaminsanahay grievanceski hore jiray dulmigii hore Soomaaliya laga tirsanayay soddonkii sano meesha u maamushay baa qayb عمر weyn ku waxaan leh jeclaan lahaa inaad su-aashaydii toos u aado toos waan soo wadaa sug adaa doontay dee adaa badan isku soo galay iska sugdee arrinta aan raba waxa weeye aan ku sheegay anigu xil gaar in laysiiyo inaan lasi muhiimi ah waxaa muhiimi ah maanta dadkeennii reer ceergaabo inay nabdaan bay muhiim say ku nabdi karayaan kuma nabdi karayaan afar maamul baa magaalada ka jiraysa waa irrealistic wey xaafadeeda ka jiraysa khaatum xaafadeeda ka jiraysa maakhir xaafadeeda warsangari qayba bilan waa ka jiraysa what the hell is this what the hell is going number 2 qiyaaska kale khaldan wuxuu yahay gaalkacyo iyo laas iyo waxay qiyaas qaataan iyo meesha la yiraahdo maxay ceergaabo gaalkacyo xaafad koonaha ku taalo go'an weeye qaybta wiil tan daaroodkuna waa qaybta weyn xagga jirta ceergaaba saasa maanad bay naga sheekeen ma guryaha isku dhegane ina culu joog iyo nimanka Muuse Ismaaciil Cabdulle Xamuud baad leedahay waa laba dowladood ma guryaha baad ka sheekeynaysaa in xaaji aadan iyo dina dawaare isku dhegan guryaha nimanka Nuux Umar iyo nimanka Muuse Ismaaciil baad leedahay bashan dowlad qoraya waxaan ku sheegay ceergaabo ma noqonayso anigu aan soo aaminsanay ceergaabo ma qaato laba maamul iyo saddex maamul toon ma qaato waa magaalo ka yar saako magaalo qaybsana maaha ninka Muuse Ismaaciil jiidari degan markaad yaa talinaya jiidari tu sheegay degan dowladda maakhir baa talinaysa wax khasbaysa aad sheegaysid magaalada xiseen u kala yaaran isha ifaansi masal ninka kula degan hadda dhuur wada degan yihiin soo saaciiday dhulka dhuur wada ayaa talinaya inaad in aqal ka shaqaysiino anigu kuma waxaad oran doontaa hartigu aad buu isticmaalay kelmadda dhuur madaxre waxa siiyay baad oran doontaa way dhulkay fadsadeen dhulkay naga qaadeen no dhuur madaxada hadda ay dagaal ka socdo ina daflaa bixiyay dowladda Soomaaliya bixisay Ismaaciil Xaaji Nuur wuxuu ahaa mashruuc dowladda aad jeceli aad waliba adigu jeceshay olaado iyo ragga dhulbaanta dowladda aad jeceshihiin ee Soomaaliya ee siyaad barre baa bixisay dhulka waa dhul sharciya ee dowladda siisay yaa u talinay marka dowladdu waxay ka talinay noo sheeg waxaan rabaa inaan ku sheego inaad argacaliye anu qof realistic ah dhalinyarada inuu khiyaali ku dhamaato ma rabo mid waa aaminsanahay sida hadda ay wuxuu wadeen Somaliland ciidamadii iyo wax walba ay dadka weerarayeen in la isku dilay waa aaminsanahay iyaga waxay keenan isdilo laakiin maanta waxa aniga ii muuqda anu qof realistic ah ahay hadalkay wuxuu ku soo koobiyaa aqoon sidiisa ninka siyaasi sugniyow su-aasha aad weydiisay jawaabteedu waa batan dee maxay tahay anigu xil aan ku soo kordhinayo iyo waxaan ku soo kordhin macna male waxa muhiim ah argumentka muhiim ah anigu aan helo wax iyo aan helin macna male baan ku waa jawaab macna iireed intaan weligay xil intaan colaad siinin colaad baan siin doonaa bal haddii uu doonayo inuu arrintii ribaarad ka sameeyo laakiin su-aashaan doonaya inaan ku weydiiya waxa weeye adigu maxaad xal u aragtaa markaa ilan waa arrintaa waa dadafaysay ninkaa odayga haddii alla ka dhigayo adigu maxaad xal u aragtaa aqoonyahan baa tahay arrinta wax badan baad ka qorsay cumar iyo ninka la yidhaahda dahable iyo colaad saddexdiinaa nin iyo inantaa buunaah siday isugu imaanaysaa oo haddii alla ka dhigay ku heshiinaysa waa su'aal da'wi anu qof dadka riwaayadda isugu sheekeymay anu waan ogahay in arrintu adag tahay aad it is very difficult
now meeshii taaganta way adag tahay, it's very difficult. Laakiin haddii la helo leadership fiican oo labada dacooda way hagaagaysaa. Marka maanta waxaan qabaa waxay kubaddu taalaa qaybta ceergaaba joogta Somaliland iyo qolada reer Shaciisa halkaa joogta kubaddu iyaga ag taala. Haddii laga arko weliba anigu waxaan soo jeedinaya haddii laga arko seriousness colaad iyo groupka caalamada badan la ordaya macna samayn maayaan. Dadku dantooda eegan doonaan, dadku wixii fiican tigaadu iyada lacda. Maanta kubaddu waxay ag taalaa laba qolo, wax xukuumadda Somaliland iyo shacabka Isaaq ee halkaa degan inay meeshaas dowladnimo ku soo ceshaan dhaba gogol fiican dhigaan, dadka soo dhaweeyaan, wax walbana halkaa dhigaan oo yidhahdaan dadka walaalaha yaan isdilayo isu keenkeen. taas maanta waxay tahay xalku nimankiina Isaaq og yaala hartiga intooda badan macquulka way eegaysaa meesha saa u dhaqantaan. Haddaad wixii sii wadaan oo iyo maleeshiyaadka iyo dhul baanu qabsanaynaa iyo dhulkaan annaga ale magaalada cid kale lama digto anoo masaar ku dhashay inaad ka sheegtaan Ceergaabo, anoo masaar ku dhashay oo aanaa keena Ceergaabo inaad ku tiraahdo waxaad ka degan tahay 90 kilomitir baa dhulbaanta jira waa beentaasoo kale haddaad sii wadaan dawal isdilaya. Laakiin haddii laga arko seriousness inaad nabad u daacad ka tahay magaaladana lagu soo cesho gacan dawladeed oo dhaba ciidan isku dhafa haddii doono hadda isku dhaf la bixinayay la keeno ciidan disciplined iyo maamul nidaam sax ku dhasha qolada reer Shaciisa magaalada joogtaana ay gogol dhigto nabadeed oo dhaba. daad waxaan aaminsanahay Suudaanka warsangelina dad buu sheegay hawsha cuqaasha iyaduna dadka kamid way aaminsan yihiin kubaddu xaggeena taala maanta xagga hartiga ma taalo saa u dhaqantaan balidin eegaya. waliilkaad nagala socotaan waa TRTV iyo dowladda Soomaaliya oo la ogaa inay xukuumadda Washington u soo bandhigtay inay u daba ka dhiibayso iyo weliba inay gacanta u gelinayso dekedda Berbera si looga hortago aqoonsi ay dowladda Mareykanka ku taarato Jamhuuriyadda Somaliland. waxaa laga wada dheregsanaa inuu Xasan Sheekh Maxamuud u diray Donald Trump warqad uu ku joogsaday taasoo soo baxday 16 kalgeeshan aynu dhex qaadayno ka gadaal markii ay heshay wakaaladda wararka ee afka qalaad lagu dhaho Reuters taasoo lagu xusay in Soomaaliya Mareykanka u soo bandhigtay la wareegista habada Berbera si uu isaga hormadoobeeyo dhulka gudatiga gaaban ee Xuutiyiinta Yemen. haddaba waxaa la sheegayaa inaanay xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud gacanta ku haynin dekedda magaalo xeebeedda Berbera taasoo aan tugna xadin. waxaa la sheegayaa inay u aragto meel iyada la weliyo taasoo iska afka baarkiisa. dhinaca kale wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Danjire Axmed Ciise Cawad ayaa u sheegay idaacadda French ee BBC jibsinteeda afka Soomaaliga inay gebi ahaanba warqadaasi ula muuqatay islamarkaana ay tahayba degdeg tabardaro iyo quus uu taagan yahay ama uu ku jiro madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. waxa uu intaa ku daray inaan loo fadhiyin oo loo faarumaysan in warqadani dibadda u soo baxdo amaba la arko. waxa uu gabala ka cadeeyay danjiruhu in aysan muuqan inuu dalabku ka yimi docda Mareykanka maadaama oo loo baahnaa in la arko doonista iyo damaca Mareykanka ee habada Berbera. waxa uu biniixiyay danjiruhu inay ahayd sidii ay labada dowladood arrintan ugu dhammayn lahaayeen qaab diblomaasiyadeed oo qarsoon. waxa uu sheegay Danjire Axmed Ciise Cawad inuu Xasan Sheekh Maxamuud gudahayo gudcur maala rowla in la wadi jirayba hadalka Axmed Ciise Cawad ayaa ku soo beegmaya xilli uu talaabadan ganabka ku dhuftay Danjire Peter Pham oo soo noqday xogayaha arrimaha dibadda u qaabilsan qaaradda Afrika ee dalka Mareykanka.